Okay, no, wadanka haddaan hargeysa joogo yes way qaldanaan lahayd laakiin ingiriisku adigu ma dumar adigu dumar ma tiida maxaa dumar ku dhex galay dumar iyo afaarahooda dumar laan baa la yiraahdaa ninkani waa nin hadalkiisaba ka garabday nin codkiisa sida naagu u hadlaya ninka naga daa iska daga walaalo adigu dumar doodiskaaga ma baahnay dabadaada daboolo naga daa naagayti buu hakaniye asan niic daabo haye niic badanaa ma hada sheego waxaad rabtid ani waxay cajabisay iyaalka xaafadda oo hadalka ku hadashay markay gabadhu tiri gabadha sida uu hadlaysaa la furay wallahi waan jirracooday waaniga bartay bay imikana bes soodigi fahmi waaye ninku adeega ma coowe adeega ma coowa waa isaba bismillaahi raxmaani raxiim adeega ma coowa la yaababa naftiisa wax u raadsanayo مريم عبد العمر وادي سو دوينينا مادام هذا السي وناكسن عيسى متى عيسى anigu may walaal samaroon baan ahay nimcaan laaban maadeenahay siyaada washington hadal cabdiraxmaan baa soo wada miir baxaya walaal nimanka samaroon sida dariishada lagala baxaa isdiyaari wiilkaadi maxaa tiri warkaysi nimanka samaroon isku hagaajiso maaragtay ciyaalka xaafadda istiraha alla ilaa waa qabowsatay un baa mid samaroon dariishada ka soo galay dhac waa lagala baxaa oo ilma adeeraha ما أنوحا والله ورمان هاي الله ولا سمران كوان كبقى ما حد قبقضا والله ما شاء الله ضد لاندير يالا والله لاندير وارو ميري فرتوني قف كان بلوغنا قصار كوسك عيتماي كيو يا كاس alright قف كان تورا ولي قديس من نقل ملاله إلهي أفكار هاي may wala hadalkaagii bay cajabiyay iyaalka xaafadda ina adeer soo dhawaaw miiska la dultay walaakiin waxa jirta nimanka samaroon ma sha Allah waa wiilal fiican laakiin markaad isku toosisid oo aad jeclaatid oo ma sha Allah isku tihiin gabar samaroon buu gadaalka keensanayo guursanaya waxaanu ma qaanid Djibouti baan ma garan imikada aan ku sheegay Djiboutiyaanka waa rooyihiin marka barasho horteed hay nicin barasho horteed hay nicin qabiil horta ma baa qaaniba oo Djibouti ku kalaanay Djibouti qabiil ma yaqaan magtaana la wallahi ima ayaam dhawid baan bartay maartay Washington ku dhabartay ba ma daragtay ku kalaanay hay wiilku waa habar gidiriyo waxa ayaan dhawid baan bartay ma garanayba كودي تمام واسع Djibouti gob way qabiil ma yaqaan runtiis waa kala wax ku sheeg cadaan baan anu la karo way la soo dhigtay iskoolka ninkeeda caawa heshay bes ninkeyga waa hela ana ya taafada waxba ku sheegay hadda doonaysid halka ba kaaga dhax sheeg haye inaade waa ku dul maraya laakiin dul mar waa ku dul maraya anigu waxaan la soo koray cadaan farsiisan la dhigtoon la soo koray halkii markaan aan dhalanayay ka soo baxayna waan mahadiya hadda fahmaysid ma sha Allah haye ma fahanti waan fahmay bes hadaba بس ما بفريسيد maxaa yeelay de waa ku dhuuqayaa ayaa helaba ma ka faaninayay halkan ka soo baxay waan mahadiya yaa kaafada ma kala taginaba مع السلامة هذا مالي ونكسر وكا عراسك ولا سوهم بليه بس هي طبعا الجناد ما حرر قف على ودوقها قد وان mahadiya baan ku halkan ka soo baxay halkan ka soo baxay waan dul maray de marka gabdhihiin qaar ba fahmi waayo aad baan uga qaadayba halkan ka soo baxay بس انت يقول انت اديك بس بس واحدة ما نيكن بعد أورن أي الله يغفر بعد أورن هاي يلا هذه ناقة ما تلور رعيني ما يقولي حربتين فيري أنا على رسول وهرت دمشق أنا تي لكن هاش إنه بدلوا أفكر سويبان تناقضي بعدين كأتين وحبرين فسكان يكتمل أنت حاجة ماشي مبلغ واي ما هقول كمودي وادول مريض وادول مريض أنا قلت لك وان ما هدي يابا نيرو وادول مريض هذا في الصومال قلت نقول أتكلم من هذا ندي ويمكن ما بكره ما أنت مهم أهو ها وكا كرجو صار بس واحدة ما تمرك صاحب بلياي مرة تأويل سمران كنت كنت وكسور وين أنا هدانا أنفعل دمشق أنا تهاي
ده هدي ليس أنفع وين أرلد إلهي وين ترجبوت وذا سلامينا وكرك مدحنا إيمك عيالك حافظ وأنا waa صوت ninka ريبا saddexaad oo reer jabuuti ka baranayo عبد الرحمن وين مدحين dad naqsa oo dad nabada kooda taqaana mayga ahan مسج Ayaan باكو uma صوت ammaanayo. ريبا haye bis live-ka markaan ka dhaca arkaa haye مسج باكو صوت haye xambaliyaa la soo yiri astiim ciyaalka xaafadda ku soo dhaweynaa dimaashiyaa idagayso ina adeer دقتين cabdiyo إنكم دمروا مركال كي جوكتين fiiri cabdiyo idagayso reerkiina Ah, walaal waxaan shay. ku wadankiina wadankiina qabiil ma la horta moogtahay dad Waarun. gobanimo badanoo dad jeceloo wanaaga badanoo yacni qiimo badan laakiin xoogaa waxaa la dhahay waxaad waxaa shay kulkulaato waa furiinka waa dhow yahaa la dhahay maxaa ka jiro marka naagaha ma fulaan ayaga dhegayso ma markii hore mise imika labadaba haddii markii hore aad lahayd wallahi maad aragtay furitaanku way yarayd laakiin imika waxaa gardaran horta boqolkiiba boqol raggaa gardaran oo dee fahmi la sax waay war heedha jaarjigaysi waxayna raggu u gardaran yihiin hadday noqoto jabuuti dee rag baa jooga hadday noqoto dee london iyo maraykankaba rag baa jooga anu qaadi baan ka shaqaynayay intii markii ugu dambeysay intaanan markii hore waxaan ka shaqaynayay boorka waa ka yimiday oday adeerkay baan la shaqaynayay cilmi badan baa ka biirsaday furitaankii waxaanan arkay wallahi 2,000 oo case oo lasoo furay Lawyer inay baa raggu tahay. gardarnaayeen boqolkiiba 99% raggaa gardarnaa maxay u gardarnaayeen maasha cadda oo lawyer ma tahay lawyer may yihi lawyer ma yihi safewayga maraykan maad joogtaa ما welcome to Australia jooga way moo ka shaqeeyaa Australia okay Melbourne ama Sydney okay Melbourne safeway baan ka shaqeeyaa marka lawyer ma yihi waxaan arkay case imsa 2,000 aniga UK aan joogaaye ciyaalka xaafadda UK baa joogtaa ha London ha maasha allah Seattle Washington qaybta BBC da halka ka soo gudbisaa marka 2,000 oo ay case baan station ma haysataa marka citizenship anigu wallahi waa green cardkii sanad baa iga cadhay waan ku iman London markaan helo waan ku iman insha allah am citizenship nin bilaa sharci rejected bay dhahdaan naagtan haddaan kuu sheego waan u imanaya baalkii green cardkii markaan qaataan imanaya green cardkana waa 2026 iyada wax ma soo safrinayso ogow ya naagtan qaaliga ciyaar maahan may wallahi way cajiibisay waan yaabayba waxaan la dultagi jakada halkaan la dultaga markaan gabadhi sharciga haysatid ma lagu dalbi karaa viso ma ku dalban kartaa waxa weyn maraykanka markaad aad timaadid waxaad xareysan 150 cisho kadib pending bay yiraahdaan kadib warqadii shaqada ku soo dhici warqadii shaqada kadib maxkamad baa tagi maxkamadda ku siinayso ko odhanaysa 2 sano kadib ama 4 sano kadib baan ku siinaynaa marka anigu waxay igu beega tahay 2007 iyo 2020 ilaa tan u jeeda ay igu beegan tahay ana maana inta sidii kale haye green card waa sanad kadib waa inuu 25 bismillah haddaad inta aad heshidna wallahi ikhtiyaar haddaad inan kale heshidna ahla wasaal kuma qabo oo maariguma ka xidhno ikhtiyaar maya aniga citizen baan ahay aniga I'm British citizen okay ya waa inaan kala US waa dima kartaa de yep US waa dima kartaa de yep maraykan waa dima ma kartaa shaqeysaa marka safeway waan ka shaqeeyaa maraykan ma noqonaysid bablaa shaqo aha yes ma noqonaysid waa lagula yaabiba ma garat isku raanaye ya isku raan horta maasha allah caawo congratulation horta soo qora walaasheen ha haye tigidka hotelka waa dhiibi kartaa sama maasha allah hotelka ma meelaad degtay aad geshid haddii lagu yimaado ha hotel 5 gurigaygaad joogi badde halkan baad ila galayba mise guriyaa leedahay gurigan ba halkan ma karaystay ma halkan baad ila gali 200 weyn haye maami soo hadla gabdha congratulation arooska dee fikrada kasoo dhiibta marka honeymoonka de guri laguma galo waa la soo wareejiyaa oo hodheelada la seexiyaayo oo meelaha cunto laga soo siiya maxay guri la isku xareynayo السلام عليكم السلام عليكم suhaylana ku darsa suhaylo aniga maogtahay gabdhaha waa ila dhasheen maogtahay waan ogolahay waad maashiyaashii